si looga dhabeeyo dhaqangelinta halku-dhigga dowladda ee nabad iyo nolol ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu safar dhinaca ah toddobaadkan ku tagay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose si uu xaaladooda nololeed wax uga ogaado dadka deegaanka. dhibaatada ugu badan ee ay ka cabanayeen dadka deegaanka ee uu madaxweynuhu la kulmay waxa ay ahayd isbaarooyin yaala wadooyinka soo gala degmada isla markaana aan suurto gelinaynin in dadkaasi ay nabad iyo horumar gaaraan. mudane madaxweyne magaaladan dhibka haya ilaahayba iyo inta joogto waxaan u malaynayaa magaalada gudaheeda dhowr isbaara dhexta waa magaalada gudaheeda dhowr isbaara dhexta banaanka hadaad u baxdana warkeed badhaa wax laga qabtona ma jirto maamulaana ka jirin oo wax ka qaban karin ayagii markaan u tagno waxay leeyihiin waxaan qaban karna male. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dhageystay talooyinka iyo tabashooyinka dadka deegaanka oo ka turjumaysa dareenka guud ee shacabka Soomaaliyeed ayaa amray in si degdeg ah loo qaado jidgooyooyinka yaala wadooyinka isla markaana la isku furo wadooyinka guud ee dalka. ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu Ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha. dowladdaani dowlad xoog ku timid ma aha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye. awoodan idinka iska leh annagu ma lihin annagu waxaan ninahay adeege. difaaca iyo ilaalinta karaamada muwaadinka Soomaaliyeed waa waajib saaran ciidanka qalabka sida iyo fulinta amarka hoggaanka dalka si nabad iyo karaamo ay ugu noolaadaan dadka Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka oo ka duulaya amarka iyo siyaasadda dowladda Soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka jidgooyooyinka ayaa sameeyay howlgal guuleystay oo lagu soo qabqabtay ciidamo iyo dad shacab ah oo ku labisan dareyska ciidanka oo jidgooyooyin ay u yiileen wadada sida warbaahinta qaranka u sheegay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Cabdullaahi Cali Caanood. anagoo fulinayna amarkii ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda waxaan bedelnay dhammaan taliyayaashii aagagaas madaxda ka ah sida taliyihii guutada iyo taliyihii ururadii. tallaabadii u horeysay ay saraakiishii aan geynay meesha ay qabteen waxay noqotay inay niman isbaariste ah oo magaca xoogga dalka ka tirsan ay soo qabtaan iyo niman shacab ah oo isku dhex jira oo qoryo wata. dabadeedna ay noogu keenaan xarunta gaashaandhigga waxaanan u gudbinay xabsiga dhexe maxkamadda ciidamada qalabka sidaan u gudbinay ayadoona waaran bay u jartay oo waxay u gudbisay xabsiga dhexe u gudbisay. laba jeer bay ahayd mar intay isbaare u suurageli weyday bay mootooyin uga daba tageen oo yaaq bari weynay baabuurta kusoo isbaaraysteen marna ticsiilaya inta u dhaxaysa wala weyn bay ku sameeyeen baabuur joojiyeen ayagoo aan wax weyn samaynin oo waxba qaadan baa waxaa la kulmay saraakiishii iyo ciidanka kormeerka ahaa waa la soo qabtay waxaana aan u gudbinay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyaduna waxay u gudbisay xabsiga dhexe. dadkaas isku darkooda marka la isku daro mar 5 ah iyo mar 6 ay ahayd. maxaa talaabaha ayaa laga qaadayaa ciddii lagu arkay iyadoo isbaaro dhiganaysa wadada ee ka tirsan ciidanka? waa kan mar kale abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Jenaraal Cabdullaahi Cali Caanood oo ka jawaabaya su'aashaas. askarigii la qabtana waxaan xilka ka qaadi doonaa taliyihiisa kooxda xilka laga qaadaya waxaana noo qorshaysan 4 waxyaabood. kow sarkaalkii ciidankiisu isbaaro dhigteen xilka laga qaado darajo dhimis lagu sameeyo iyo in la ruqseeyo intaba way noo qorshaysan tahay oo askariga inta la qabto xabsiga aan la geynay taliyihiisa lala xisaabtamo la taliyihiisu askarigiisu meeshuu ka hoyday waa inuu yaqaanaa taasna waa noo qorshaysan tahay. howlgalladan ay dowladda Soomaaliya ku qaadayso jidgooyooyinka yaala qaybo ka mid ah wadooyinka gala magaalooyinka gobolka Shabeellada Hoose ayaa qayb ka ah qorshaha sugidda amniga dalka waxayna sare u qaadaysaa kalsoonida iyo wada shaqaynta shacabka iyo dowladda. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.